لكن وان مقليا اللي يتبع عملية علماء الله مقعابين مركي ليش شيء اللي تري وقتك ودك علماء لها تذكر علماء maaha raggii firqadaha ku jirayna ee kooxaha boodbooday ku jirayna maaha ragga lay magacaabay waa labeentii culimada markii lay magacaabay ragga waxaan yidhi aan arkayna qodobada distoorka ah sidoo u tilmaamaya culimada yacni culimo heer sare ah oo cilmiga gaalada iyo ka islaamka iyo mid walba cilmi u leh jaamacada uga soo baxay weeyaan waa rag nin walba qancinaya gaal islaam marka waxa weeye ninkii cabanaya kaan cabanaynba waa raggii wadanka oo culimada ahaa rag culimo gooniya haystaana dee anigu garan maayo dalk walibana culim uu leeyahay heer sare ah oo ku afgoodo diintu wadankeenna Somaliland diinta islaamka intii uu cilmiga lahayd ay ku soo afgo'aysay weeyaan ragga leetirkii marka waxaan leeyahay ha lagu wada qanco waxaase jirta dee nin ibliis la yidhaha baa shaqaysanaya adeer halkaasi waxa weeyaan Somaliland iyo Soomaaliya waxba isuguma hadhin ninka maanta waxa rag ugu liita ninka halkaa maanta hunguri ka qabay dib isugu noqdaan ma garatay marka waxa weeye halkaa haddii la wada hadlana nin maanta koonfur u dhashay oo koonfurka madaxa oo ku dhiiran karaya waxa runtu tahay ma jiro oo oranaya war xaq bay u leeyihiin dawladdu laba dawladood isku darsadeen oo hadday deen noqdaan xaq bay u leeyihiin oranaya kuma jiro marka waxa weeye halkaa anigu haddii la wada hadlana dee waa wada hadladii kalo haddaan la kala aamusana Somaliland koonfur waxba iskuma hadhin